waxaan keenay xaaskayga oo caafimaad qabtay waxa ku dhacay cudurka COVID-19 afar cisho kadib way sii adkaatay xaaladeeda kadibna waa geeriyootay ayada iyo cunugeeda waa isku dhinteen ilaahay ha u naxariisto inta aan isbitaalka dhex joogay waa maxamed caafi xaaskiisa Fadxi Aadan ayaa gudaha isbitaalka Martini ugu geeriyootay xanuunka corona marxuumadda ayaa lahayd uur 8 bilood ah oo ilmihii ugu horeeyay ahaa laakiin qadarta eebe hooyadan iyo uurjiifkeeda waqtigooda dunida ayaa inta ku eka rabbi ha u naxariistee maxamed caafi markii uu waayay xaaskiisa iyo ilmihii ay waday waxa uu qaaday tallaab dhiirigelin u ah bulshada taas oo mudan ku dayasho Fadxi gargaar ma ahan hay'ad gargaar oo hore u jirtay laakiin maxamed caafi oo iminka ila taagan waxay ku dhalatay kadib markii cisbitaalka Martini oo lagu xanaaneynayo ama lagu daaweynayo dadka uu haleelay xanuunka COVID-19 ay ku dhimatay xaaskiisa oo markaasi sida astaanta aad ka arkaysaanba oo ama loogada hay'adan Fadxi gargaar hooyo uur leh ayay ahayd oo 8 bil oo kale uurkeedu uu ahaa isbitaalka ayuu ku dhimatay waxaana ka mid ahayd dadka uu haleelay COVID-19 hadda waxa uu maamulka isbitaalka maxamed ku wareejinaya agab caafimaad oo markaa loogu talagalay in looga hortago COVID-19 kadib markii isbitaalka xaaladaha ka jira ama waxyaabihii gudaha uu ku soo arko kale ay aad u damqisay oo markaa uu dareemay in dadka gudaha ku jira isbitaalka ee dhaqaatiirta iyo kuwa bukaanada ay u baahan yihiin in gargaar iyo gurmadba loo sameeyo inta aan isbitaalka dhex joogay waxaan ogaaday isbitaalka inuu ku tiirsan yahay gargaar bini aadan oo ka yimaada dalal kale iyo dadyow kale ee aanan ahayn dadkeena inta badan waxaan go'aansaday caabuqa coronavirus ee ka jira dalka inuu yahay mid u baahan in qof waliba oo Soomaali ah uu isgarab taago isbitaalka Martini oo ah xarunta kaliya oo loo godoomiyay dadka cudurradaas qaba in lagu daaweeyo cudurkaas kharashka iyo lacagaha ku baxa aad bay qaali u yihiin sidaan ognahayna dawladdeenu dawlad awood iyo tabar badan ma ahan waxaa loo baahan yahay marka in la fahmo qof bini aadan oo neeftiisii ay tahay lacag oo saacad kasta loo baahan yahay $8 oo lacag ah inuu isticmaalo qof walba oo cudurkan neefqabatoonka uu ku helay sidaa daraadeed waxaan go'aansaday wax allaale wixii aan awoodi karo in aniguna aan kaga qayb qaato isbitaalka magaceedan aniga oo ugu sadaqeynayo ilaahayna ha u aqbalo subxaanahu wa tacaala agab maxaan ku raay isugu jira hand sanitizer iyo saabuunaha gacmaha lagu dhaqdo gloves face mask waxyaabo tiro badan oo ogahay in meesha looga baahnaa ayaan waxaan go'aansaday inaan kaga qayb qaato oo aan ku wareejiyo maamulka isbitaalka Martini qof walba oo isaga shakisan COVID-19 ee jooga Muqdisho waxaa loo diraa isbitaalka Martini su'aasha isweydiinta mudan ayaasa ah dawladdeenu ma ku filan tahay daryeelka bukaanada Martini oo saacad walba sii kordhaya kuma filna absolutely kuma filna dawladda tabarteeda ma hayso dhaqaalaheeda ma hayso awoodeedana ma lahan waa xaqiiqo weeye haddii ay awoodi lahayd waxa meeshan ka jira ma jiri lahayn farmashiga buuxi lahayd daawo oolu lahayd agabka loo baahan yahay baa la heli lahaa dhaqaatiirta loo baahan yahay la heli lahaa in baahidaas ay muuqato waxa keenaya waxay tahay in dawladdu aysan haysanin qoonda ku filan oo ay ku dabooli karto baahida ayada ah sidaa daraadeed maadaama anagu shacabka aan nahay dawladdii dalka oo haddii aanan anagu dawladda aanan dawlad ka dhigan aysan dawlad noqon karin waxaan aaminsanahay kaalinkeena inuu yahay kaalinka ugu muhiimsan oo meesha ka bannaan dhakhaatiir waa jirtaa baahideeda waa loo baahan yahay waayo dhakhtar professional ah oo ka howlgeli kara meeshaan oo kale wuxuu u baahan yahay risk badan inuu qaato waa muhiim in marka qof walba oo Soomaaliya uu garto inaan garab istaagno isbitaalkan si dhakhaatiir waaweyn loogu helo oo dadka caawisa midda kale waxaa mar walba lama huraan oo loo baahan yahay oo baahida ka jirta farmashiga daawada inta ay helaan way kugu caawinayaan laakiin inta badan waa inaad banaanka aadid oo aad ka soo iibsatid marka in aan ka sugno Talyaani iyo Sweden iyo wadamo kale canshuurtooda canshuur laga soo jaray shacabkooda in dadkan lagu daaweeyo haddii ay soo gaari weeyday ay u dhintaan waxa ka wanaagsan in naga jeebkana aan hurno saddexda gelin aan wax cunayno inaan mid aan ka tagno at least mid kalena aan ku caawino magaaladan Xamar oo magaalo aad u ballaaran 2 milyan oo qof baa ku nool haddii qof walba week $1 ku sadaqaysto ama ku caawiyo isbitaalka Martini waxaan isleeyahay ugu yaraan 1 milyan oo qof oo kiiba week u bixiya $1 waa $1 milyan waxaan isleeyahay waa dhaqaale xoogan oo caawin kara dhibanayaasheena aan tabarta haysanin xanuunka COVID-19 tan iyo markii uu Soomaaliya ka dilaacay sanadkii hore ilaa iyo iminka waxa uu haleelay dad kor u dhaafaya 5,000 oo qof dadka u dhintayna waxay ku dhow yihiin 200 oo qof sida ugu mudan ee looga hortagi karo faafitaanka COVID-19 ayaa ah in la qaato fariimaha wacyigelinta ah ee dawladda iyo bahda caafimaadka
cabaas xuseen muuse mustaqbal media muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier